gabadhan iyo ninkeeda oo banaanka fadhiyo ayaa waxaa imaanaya walaalkeeda oo gaari cad wato. ninkeeda ayaa ku dhahaya xaaskeyga bal fiiriyaa imaaday maanta. gabadhan markay soo fiirisay waxay arkaysaa walaalkeeda inuu imaaday. meesha ayay kasoo kicisa aad ayayna u farxaysaa. ninkan wuxuu ku leeyahay saydigeyga kursi usoo saar uu ku fadhiisto. gabadhan waxay leedahay gudaha soo gal. ninkan ayaa dhahaya aniga halkan uma imaan in aan fadhiisto, waxaan u imaan inaan soo booqdo walaasheeda. wuxuu ku leeyahay walaasheeda waa maxay meesha aad ku nooshahay? wuxuu leeyahay walaasheeda waxaa ku nool guri aad u qurux badan oo qasri ah. maantana waxaa ku nooshahay gurigan qashin qubka ah. wuxuu leeyahay noloshaada waad ku ciyaartay, waa in dib aad ugu soo laabataa gurigaada, aad ka soo fogaataa ayuu ku leeyahay ninkani. walaashiis way iska aamusaysaa, ninkeeda ayay fiirinaysaa. waxay ku leeyahay walaal ninkani waa ninkeyga waana ku qanacsanaya. ku leeyahay gurigeena wixii ka helayna halkan waa ka helaya. wuxuu leeyahay ninkani wuxuu ku siin kara madax siga ayaa nolosha ka dhacsoo yahay waa ujeeda. wuxuu leeyahay waa inaad kusoo laabataa gurigaada, aad ka soo dheeraataa ninkani. gabadhan walaalkeeda sida xun oo kula hadlayo ka aamusaysaa. walaalkan aad ay ugu qeelinaya. gabadhan waxay leedahay walaal aniga meeshan kama tagay, ninkani waa ninkeyga waana ku qanacsanay. wuxuu leeyahay walaal aniga hadda adiga ayaan ku imaad, hadiidan adiga ayaan ku keenay, kan guriga ayaan aadin ayuu ku leeyahay. gabadhan waxay leedahay aniga ninkeeda kama tagi karo, waa ku qanacsanay, meesheeda ayaan joogayaa. walaalkeeda ayaa dhahay waayo haddii ay sidaas tahay meeshaada iska joog. wuxuu leeyahay hooqaada ayuu leeyahay dharkaan iyo macmacaanka ayaan kuu soo gaday. gabadhan ayaa dhehaysa oo kaa qaadi maayo walaalkii, sababtoo ninkeyga ayaa si qaldan kula hadashay. ilaa ninkeyga aad ku xushmaynayso waxaan kaa qaadana ma jirta ayay ku leedahay. walaalkeedu waa xanaaqay, meesha ayuu kasoo tagaya. sanad kadib ninkan iyo naagtiisa noloshooda waa isbedelaysaa. ninkan wuxuu helayaa shaqo aad u fiican, wax walba xaaskiisa ay rabtan gacanta ayuu ka saaraya. qiyadeeda ayuu u rumaynayaa. ninkan xaaskiisa wuxuu u sheegayaa wax walba ayadu u baahan tahay inuu u keeno doono oo diyaar u leeyahay. gabadhan ninkeeda aad ayay ugu farxaysaa, wuxuuna aadayaa shaqadiisa. gabadhan albaabka ee loo soo garaacay. albaabka marka ay furto waxay arkaysaa walaalkeedu albaabka taagan oo murug fara badan ay ka muuqato. waxay ku leedahay walaal maxaa kugu dhaca gudaha soo gala? ay ku leedahay fadlan hilmaam inaad furto calaamada gambaleelkaas si aad ula socoto muuqaal baan soo gelina. muuqaalkan laagale sheergale asxaabta la wadaag, intaas waxay noo tahay dhiirigelin. markuu gudaha soo galo wuxuu ku leeyahay walaashii aniga waan qasaari, waxaan rabaa ninkaada inaad iga lahayso shirkadiisa qandaraas oo iga siiyo. gabadhan ayaa dhehaysa walaal waxba ka walwalan, aniga ayaa kala hadlaya ninkeyga waadna helaysa ayay ku leedahay. walaalkeeda ayaa ku dhahay walaal iga raali noqo, si qaldan ayaa nigula hadlay, ma ahin in aan sidaas nigula hadlo. gabadhan ayaa ku dhihaysa walaal ninkani waa ninkii aad yeesayseen, naantan wuxuu noqday dheeman. ayagoo saas u wada hadlaya ayaa waxaa albaabka ka soo galaya ninkeeda. walaalkeeda fadhiga ayuu ka kacaya, gacmaha ayuu dul saaranaya. wuxuuna ku leeyahay sayid iga raali noqo, si qaldan ayaan kula hadla, ma ahin in aan sidaas kula hadlo. gabadhan ninkeeda ayaa ku dhahay taasi dhimana, noloshaas waa noloshii hore ee nolosha hadda aan ka hadalno. wixii hore u tagay inaan ka hadalno ma ahan ee wixii hadda taagan inaan ka hadalno waaye. waxaasna waxay ahayn wax goor hore laga soo tagay, mana rabo inaan mar dambe xasuusto ayuu ku leeyahay.